سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتك وحران حكيم يار أوفيشال شيء جانلك جعلك سيدان هوري كو شيء قبل جانلكو معها جانل نعيب وشيكدين دحنا هانجرت إيو علف إيو جعل وقيبتي دي أفراد ما دام قيبتي سدحات إينو مريسي فرح قدر أو قلبي saaqday dareen farxad wuxuuna ogolaaday inuu dalxiiska ka qayb qaato la soco qaybta afraad qadar iyo hodan way wada socdaan socod qabow ama socod degan ayay ku wada laafyoonayaan waxayna si wada isweydaarsanayaan kaftan galgaceel ka muuqdo iftiinka cadceedda oo jihada galbeed ka xigta iyo dhulka cagaaran iyo jawiga xasilooni iyo neeca macaan ay muujinayso shacnigooda oo shacni kulleed waad garanaysaa shacni markii la dhaho yani quruxdooda oo midba midka kale ay uu hoos ka eegayo waxayna kusoo lug darsadeen koox arday ah oo aada ugu qushuucday siday iskugu soo baxeen markiiba waxaa lala kala booday sawir farxad iyo qosol iyo inay reereen ka muuqato waa mid saa'id ah wiil ka mid ah ardayda ayaa si kaftan ah u yiri dalxiiskeena waxaa aad u nuurinayo waa labada jecel qadar iyo hodan intay la qoslay ayay gabadh kalena tiri way wacnaan lahayd hadday lamaano noqdaan ama ahaan lahaayeen waxayna damashleeyaanba waxay meel gaaban kaga soo baxeen hodan habaryarteed iyo wiilkii la rabay waxayna dareemeen in labadan xidig ka dhaxeeyo wiilkii hodan lala doonayay wuxuu iska daayay inuu hodan gaar ula baxo balse intuuna la hadin ayay ardaydii su'aalo kala hortageen wiilkii waxayna weydiiyeen ka waran siday iskugu nuurayaan qadar iyo hodan isagoo jawaabin ayaa arday kale dhaheen koleyta maxaa ka dhaca meesha ayay arday kale yidhaahdeen saaxiib hadday lamaane noqdaan siday ugu hambaliyeen lahayd wiilkii markuuba arkay halkan xaaladda marayso ayuu si dhab ah ugu qancay wuxuuna yidhi farxadani waa farxad ardayda oo wada faraxsan xaaladda xaddhaaf ah qadar iyo hodan dhoola caddeen isku jecel ayaa la jaray shantii barkii galabnimo brofesor aadan dhammaantood uu wargeliyey inay si deg deg ah ugu soo la soco qaybta shanaad waa sheekadeena xiisaha badneed ee calaf iyo jecel fadlan haddaa janalka ku cusubta waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe hadid gambaleelka furatid si uu kuu soo gaaro muuqaalka aan soo gelin haddaa hore noola joogto nagu caawi commentiga laagta sheerka iyo fikradaadana waa inoo muhim maadaama aad ka mid tahay family of cabdixakiim kule waxaa ii malaynaa xakiim yar officials family inaad tihiin qof walba ee ra'yi wata ama fikrad wata waxaan leeyahay welcome my brother and sister thank you.